qolka lagu labistaan kamarad kuugu xidhay halkaasaanan kaaga duubtay adigoo dharka labisanaya haddaad mar dambe waxyaala caynkaas aan kugu arko Soomaaliyaan u dirayaa markaad kaafi kala dheersimaysan ka duub we the best another one Titi Cadde السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا محمد حسن يوتيوب كداوني سنة وتيتي عدي آد بان إذن جعله مالو البادوني ديك جوبتانا نيت سميك القعد وسود هذا جنال كيجا وتكون هسنتين داوش هذا فيديو ده أسوق لي فضلا هدي أتكون عصبتاي أما يكون تابو خشة هذه كواد أما أتسبسكرايب لأم بقي في سنجرتي وعن هذا كعد سنة إن سبسكرايب صارت الجنال كجنبليل كفرطه سيكوسو جاران مو قارد قدام بيه فيديو قال أكثر أدي هذا وما سنتين أنت صورنا العق معهن وفري سيدا عادي لكن كيدنا كسر هذا موقال عصب موقال وموقال حيصله وأن ربينا وقهد له جودة الجشاف في لماذا الصومالي ذا أكثر الدعاء اللي يراد إلا هنحرقه أي واحد دعوة كتهاي تي في يونيفرسال أو كرمادي أو كميدا ما لحظة صرصرة تي في waxay sheegtay ilhaan in ay ka tagtay TV-ga Universal kadibna ay ku wargelisay in aan laga deey karin ama laga baahin karin dhammaan fiidiyoyadii ay u duubtay TV-gaas iyo YouTube-ka u karmaaday kadib dhag jalaq waa loo siin waay macnaha waa la dhageysan waay yaa tahay camalaal yiri adiga riwaayadan iyo sheekooyinkan qarasha naga galay seenkaaga joojinayna okay kadib waxay tiri aw karmaadi ayaan wacay markii la iga joojin waayay kadib waxaan iri haddii barnaamijkan uu sidaa ku sii socdo ogaada dacway tagay hala ogaado dacway tagay hadhoodii ilaahana qof xunaata ayaan la dhihin aw karmaadi wuxuu yiri qof yeemiya ahaa soo dhawow yaa isdaji isgaabi fakfaktan ifardheertan aawad joojiyo yiri sababtoo ah wuxuu yiri waxaan oo kale inaad la imaan doonto 10 sano ka hor ayaan ka baaraan degi sababtoo ah wuxuu yiri adigoo qaaban ayaan video ka duubay markii aad kaaf ii kala dheeri aad sameeynaysi qolka aad ku labisanaysay ayaan ba camera ku dhigay ee ogow haddii aad hoosha si buunbuuniso xamar baan u dirayaa videoyadaada kadib social media lagu soo yaacinaa ceebay tacaalana ka dhacayso ilaahan ayaa waxay tiri inta markii aan maqlay inaan taaganahay iyo inaan fadhiyo inaan jiifan kala garan waayay tiri dhidida sharax iga soo dhaaynaad aad baan u naxay tiri maroor dilaacayna marka run ahaantii horta gabdhaha Soomaaliyeed meel alla meeshaad Soomaali kaga nooshiina caalamka meesha rabtaan khadtu waa ku dulmantihiin qaab kastaan u dulansantihiin dad laakiin dantiina aan wadin ayaa waxaad u moodin inay idin jecel yihiin marka dumarka Soomaaliyeed 100,000 oo meel ayay ku siran yihiin dadka social media xitaa u furan maanta dhan naagay amaana xabadna ma ka jirto naagna difaacayaan iska dhigaan xabad kama jiraan idinka umbaa nila sabana waan laga yaabay waan laga cabsaday dumarkiina Soomaaliyeed sababtoo ah dadka inta badan daawada ee social media waa gabdhaha Soomaaliyeed dadka inta badan commentiga qora waa gabdhaha Soomaaliyeed dadka inta badan like saara waa gabdhaha Soomaaliyeed sidaa darteed halahan oo kaliya malab loo mariyaa aan gudaha jirin inta hadday soo dhaafan waa qaraar halaas bis baa malab loo marsadaa marka gabdhaha Soomaaliyeed alla badbaadiyaan leeyahay inta marka ugu sii dhaadhaco waxaan rabaa horta in aad ila aragtaan oo ila daawataan ilahan naftirkeed oo codkeeda ku hadlaysa waxay dhahayso bal hal mar ila arka walaal calaykum salaam walaal aniga horta arinta jirta qofna kala maan hadlin runtii aniguna maan soo fadhiisano meeshii way isla kacdayba laakiin dhibaatada jirta oo dhan waxa koos gareeyay ninkaas oo cameramanka ayaa koos gareeyay runtiina waxaa dhacday aniga inaan TV-ga ka tagay waxyaalo badan oo jiray aan uga tagay horaan uga hadlay arinta TV-ga maraan ka tagay wixii layga duubtay in la iska dhiga meel ay ahayd ayuu qaaday uu isticmaalayaa oo TV-giina lagu shidanayaa YouTube-kiina lagu shidanayaa waxaan ku yiri walaalo anigu YouTube iyo wax walba furto hawlo gaar qabsaday qof kale oo ii ka bedela soo raadso ii dhiga alaabtayda wajigayga hasidanine
maalintan hadalkaa ku idhi haddii kale baan ku idhi waan ku dacweyn hadalkaa maalintan ku idhi ayaa waxaa la sameeyey in lay hanjabo aniga la yidhaaho naayaa 10 sano kabacdi wixii dhici doonaan ka fikira anigu qolka lagu labistaan kamarad kuugu xidhay halkaasaanan kaaga duubtay adigoo dharka labisanaya haddaad mar dambe waxyaala caynkaas aan kugu arko Soomaaliyaan u dirayaa social media oo dhan baan kugu ceebaynaya arrinka markaan maqlay waan naxay waan yaabay oo goormay ahayd baan weydiiyo markaas wuxuu igu yidhi 2009kii markaad kaafi kala dheersimaysan ka duubtay war annaga ama war aragnay anyway aniga go'aankaygu wuxuu noqday markaa inaan police station ka tago TV-gii isaga dhanba wuxuu dhanba waan dacweeyay anigu kiiskiina wali wuu ii socdaa arrinta la isku haysto waa arrintaas kabacdi intii kuma fadhiisane gabdhu ii soo kireystay hablihii ayaa lagu soo daayay Facebooka iyagoo aan waxba reebanayninba oo saad aragteenba kulay waa daawateen baan jeclahay kuwaasna runtii kuwaan u jawaabay ma ahayn waan ka aamusay anigu markaa anigu ninkan baan u jawaabi waayay manaagaan u jawaabaya la soo isticmaalay oo maxaan raday la soo kareeyay uma jawaabayo dhibaatada jirta markaa inaad waa intaas waxa la igu haystaa wuxuu ka xun yahay inaan TV ka tago soo cushtana ma yaqaano anatu soo noqonaysa meehi arinta labaadna waxa weeyaan hayuus kareenin fiidiyoyadayda anigu raali kama ihi inuu isticmaalay isagoo TV-gu toona raali kama ihi marakaata la isku haysanaya hay tanoo kale weligay maan arag booban yaabanahay baan anigu واركتين داوديال ور لقبا حيسا ملين هذا الصومالي دا دقينا كمخليسين او ارقينا نو موقدي رنتي او كرمهدي ايا قبدا وحوقاهن جبي ان او كهايو فيديو ايضو معناه درك اسكبدليس معناه قف هذي درك اسكبدليسنا وقف قاون ومعناه نوضو اي دهان dadka qaar nuuday u yaqaan waa qof nuuda ah oo sida hooyada ku dhashay ama rajasiin ama kastuuma kaliya qabta waay macnaha video noocaas ah ayaan ka hayaa yiri waliba waxaan ka duubay 2009ka ilaa iyo hadda 12 sano oo ka soo wareegatay waan hayay oo laakiin waxay ku xiran tahay in ay isdajisid in uu banaanka aad hadii ay isdajin weyso banaanku ayuu videodan aadaya marka waxay tiri police station-ka ayaan ka dacweeyay TV-gii asagaba marka kiiska uu noo socdaa maxkamad inaan la sii aadan rajeynayaa marka waxayna leedahay aniga ma rabi marna in fiidiyoyadeeda loo isticmaalo TV-gaasi marka run ahaantii gabdhaha Soomaaliyeed dhan xindaabkaana ku wada jiraan qaar sidaa loo galaayo qaar la bahdilaayo qaar la dhibaateenaayo marka ayagiina ciddii uroon oo maciinkooda ama yaqaanaan ciddii cunayso unbay u ordaan marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed aqligiina horta ha shaqeeyo indhiinana ha furnaadaan sababta waxay tahay Soomaalida ayaantan waxaa soo badanaya inta dan la leeyahay la horumarinayo in idinkana lagu jaranjaro karo sababtoo ah gabdhihii Soomaaliyeed ayaa waxay naqdeen kuwa lagu mashruuc raadsado ama kuwa dhuuniga lagu jirsado sababta waxay tahay social media 24 saac waxa la iskaga dhigaa in idinka la idin difaacayo haddana taas sax ma ahan oo waxa la raadinaa oo kaliya wixii maalinta la idinka heli lahaa madaxiina waxaad leedihiin wallahi tiitinin fiican waaye tiiti nin wanaagsan waaye gabdhaha ugu heeli geesi baa tahay ababababa waxa kama jiraan tiiti intaa baa malab umarsan intaas bes baa malab umarsan gudaha hadda usoo gashid waa qaraar tiiti banaankaasuu kaasiraa markaasuu wuxuu ku leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed waa gob weeye gun ma aha cirkay ku jiraan diyaaraday raaceen hadday qaldan yihiin iyo hadday saxan yihiinba dusha ayuu saaranayaa horta adduunyada cadaalad beertaa waxaa loo baahan yahay gabdhaha Soomaaliyeed in xuquuqdooda la ilaaliyo ayagana laga ilaaliyo xuquuq islaameed in ay dhibaato gaarsiiyaan gabdhaha waa in loo hiiliyaa markii laga khaldan yahay
waa in loo hiiliyaa markii ay saxsan yihiin labadaba waa in loo hiiliyaa laakiin markii laga khaldan yahay waa in la garab istaagaa laakiin markii laga saxsan yahay waa in la yidhaahdaa idinkana sidaa ku socotiin maahane ka jooga marka hiilinta dhabta ah taas waay laakiin haddii aan isku brograamiyo gabar le afka u maceey si kumanti qurux badan lagugu soo qoro unlagtana lagaaga ilaaliyo soomaalida youtube-ka unlagtiya hadda wadna kurkur ku noqoto wadna kurkur unlagtiya waxay u maleeyaanba in xabad lagu dhufanayo oo kale qofka waxaa arkaya haddiiba 5 unlag loo saaro bis waa maalintaas geeri nin loo sheegay camal waay war unlag ilagtub waa jirtaa nin fariisay ku xiran tahay adiga murug kugu naqanin ha ka walwalin qof kale wuxuu adiga kaa aaminsan yahay sababta haddii qof kale aad ka walwasho wuxuu kaa aaminsan yahay weligaa tilaab ma qaadi kartid laakiin muhiimaddu waxay tahay waxa adiga jeceshahay in aad samayn kartid waxa adiga jeceshahay in aad ka hadli kartid aan lagu baqdin gelin karin aan lagu cabsi gelin karin commenti haddii lagugu soo caayo qofkaa asigaa ku soo caayay adiga faa'iidaad ku qabtaa asigana waa kugu sii naartagaa oo dembigaa qayb ka mid oo qaadanaa adigana faa'iidaad ku qabtaayo asigii aad kusoo booqday uu ku imaado oo waqti ku geliyey oo teem kugu lumiyey kadibna kuu sameeyey lacag marka adiga mar walba hawlwelin laakiin muhiimaddu waa in aad sameysaa waxa adiga aad jeceshahay oo niyadaada ka yimaaday in aadan lagu baqdin gelinin in aan lagu cabsi gelinin inaad ahaatid sidaa maalinkay gabdhuhu saxan yihiinna aad tirahdid viva gabdhaha maalintii laga saxsan yahayna aad tirahdaa gabdhaheena soomaaliyeed waa qaldan tihiine idinkuna halahaas ay xuduudiina taa ha soo dhaafina marka taas waa wax saxda ah ee dadka lagu kala ilaalin karo waa ognahay in aad ugu yaraan 70% 80% idinku aadna daawatiin commentiga naga soo bixisin inta badanna waa gabdhaha wiilasha 40% ayayna daawadaan ama commenti naga soo bixiyaan 2% laakiin idinku waa kuwa lagu joogo social media qadarin weyn ayaad naga mudan tihiin laakiin waxaan rabaa in gabdhaheena Soomaaliyeed maadaama idinku maanta nilagu joogo social media inaad iska ilaalisaan dadka intaa kaliya malabka idin marsaday ku mahadsantihiin daawashada videogan tan iyo kulantideena dambe waa walaalkiin Titi Caddo idin leh